asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkani waa daalacan miidiya. daawadayaal meel kasoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. daawadayaal markale ramadaan kariim, xubinteen waxaynu ku soo qaadanaynaa ma dhaba in duulihii ku geeriyooday diyaaraddii ku burburtay Bardaale asal ahaan uu kasoo jeedo dalka Yemen. bishan afarteeda diyaaradda ay leedahay shirkadda African Express Airways ayaa waxay ku dhacday degmada Bardaale gobolka Bay, waxaana soo baxay warar kala duwan oo ku aadan waxa sababay burburkeeda. diyaaraddaasi waxaa duuliyaha koowaad ka ahaa kabtan Mabruuk Islam Sherman iyadoo gacanyahiisana ahaa Cumar Jiradin, waxaana la sheegay inay labadooda ahaayeen muwaadiniin ka soo jeeda dalka Kenya. duuliyaha koowaad ayaa la sheegay inuu asal ahaan Yemeni yahay sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo muhiim ah. shabakadda wararka Yemen ee lagu magacaabo Tahdiid Net waxay cadadkeeda shalay ee bisha May ahayd 5 qortay xubin wareed ay cinwaan uga dhigtay duuliye Yemeni ah oo ku geeriyooday gantaal ay ciidanka Itoobiyaanka ku dhufteen diyaaraddiisa. shabakaddu waxay qormadeeda ku bilowday waxa uu kabtan Mabruuk Yaslam Mabruuk bin Faraj bin Sharman al Nahdi ku geeriyooday shil diyaaradeed. duuliye kabtan Mabruuk waxa uu ku geeriyooday diyaarad ku dhacday Soomaaliya taasi oo ka timid Kenya iyadoo waday shixnad daawooyin iyo cunto ah. diyaaraddaasi waxaa soo riday gantaal ay ciidanka xuduudka ee Itoobiya ilaaliya ay si qalad ah ugu dhufteen. dhinaca kale wargeyska The Nation ka soo baxay Nairobi ayaa qoray in duuliye Mabruuk Islam Sherman uu deganaa magaalada Mombasa isla markaana uu muddo hal bil ka shaqeynayay gudaha dalka Soomaaliya. duuliyaha geeriyooday oo 22 jir ah waxa uu duuliye buuxa oo rasmi ah noqday dhowr bilood ka hor. duuliyahaas waxaa la sheegay kahor inta uusan geeriyoonin shilkaasi inuu la hadlay xaaskiisa 3 caruur ah kuna wargeliyey safarku ku joogo Soomaaliya. waxa uu duuliyaha u sheegay qoyskiisa inuu maalinta Khamiista ee birito ah dib ugu soo laaban doono Mombasa, balse taasi ma dhicin oo waxa uu geeriyay isla galabtii Isniinta ee uu la hadlay qoyskiisa. aabaha dhalay duuliyaha geeriyooday waxa uu isagana sheegay inay la hadlay wiilkiisa uu sheegay inuu Mombasa imaan doono Khamiista socota, balse nasiib darro ku sheegay inuusan mar kale dib u arki doonin wiilkiisa. si kastaba ahaatee baaritaan wada jira ayay wadaan dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya oo ku aadan in la helo xaqiiqda dhabta ay ku dhacday diyaaraddaasi nooceedu ahaa Embraer 5YXO. 6 qof oo la socda diyaaraddaasi ayaa ku wada geeriyooday, kuwaasi oo kala ahaa 2 duuliye oo Kenyan ah iyo 4 muwaadiniin oo Soomaaliya. daawadayaal xubinteena waa naga inta waxaad kala socoteen Daalacan Media.